af ama luqad waxaa lagu qeexaa inay tahay aalad la isugu gudbiyo xogta iyo fikradaha markii aynu rabno inaynu wax isu sheegno waxaynu adeegsanaa af labada qof ee is af yaqaanaa xogta way wadaagi karaan labada qof ee is af aqoonin culays weyn bay kala kulmaan inay xogta wadaagaan sidoo kale qofku fikirka iyo dareenka uu qabo marka uu rabo cid kale inuu u gudbiyo waxa uu kula wadaagaa afka ama luqadda uu ugu sheego arrintaas marka maadaama afku uu yahay aaladda ugu habboon ee lagu gudbiyo aqoonta waxaan shaki lahayn aqoontii sooyaalkii ummadihii hore inaga soo gaadhay ilaa markii bani aadamku uu abuuray uu bilaabay inuu aqoonta ururiyo aqoontaas uu ururinayaana ay qoraal markay taaba gashay waa markii qoraal lagu ururiyo ama sawir iyo waxyaabaha la halmaala waxa uu adeegsanayay af si markaa afku ama luqaddu ama af Soomaaliga oo maanta aynu haynaa uu kaalin weyn uga qaato sidii ama uu u noqdo mid si fiican u gudan kara kaalintaas waxa loo baahan yahay adeegsigeena afka inaynu xirfadayno dadka aqoon-yahanada ee aqoonta iyo fikirka leh waa inay adeegsigooda afka ay adeegsanayaan ay xirfadeeyaan yani in afka la xirfadeeyo maxaan ula jeedaa waxaan ula jeedaa qofku markuu qof kale oo caadi oo suuqa kula hadlayo si nolol maalmeedkeena waxyaabaha si sahlan isugu fahmaynaa laakiin macallinku marka uu doonayo ardayda inuu u sharxo 10 taariikha ama 10 fiisigiisa ama 10 xisaaba wuxuu u baahan yahay afka uu adeegsanayaa inuu yahay af cilmiga uu gudbinayo iyo aqoonta uu gudbinayo mid uu ku habboon inuu yahay dhanka erey bixinta dhanka ereyada uu adeegsanayo tayadooda iyo qiimahooda iyo xogta sida ay u xambaarayaan waxaa la mid ah qofka warbaahinta jooga marka uu dadka la wadaagayo luqadda uu adeegsanaya waa inay u xirfadaysan tahay waxaa la mid ah qofka tusaale ahaan garyaqaanka ah ee hawl qabanaya garyaqaanka qareennimada samaynaya luqadda uu adeegsanayo waa inuu xirfad ahaan u adeegsadaa cilmi ahaan ay u habaysan tahay marka si afku uu guto kaalintii looga baahnaa ee ahaa inaynu xog buuxda ku wadaagno xog cilmi ah waa in afka xirfadayntiisa iyo adeegsigiisa xirfadaysan ama adeegsigiisa cilmiyaysan ee dadka adeegsanaya loo tababaraa oo aan lagu kaaftoomin aqoontii caadiga ahayd ee uu afka uu ku bartay waa in loo diyaariyaa erey bixintii loo baahnaa waa in loo xulaa qaababkaas oo dhan waa in la xoojiyaa marka taas waxay ka qayb qaadanaysaa kaalinta afku uu qaadanayo ee ah inaynu cilmiga iyo xogta ku wadaagno inuu si sax ah u guto waadna mahadsantiin